kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada barnaamijku waa muhiim waana kooban yahay waxaan idinka codsanayaa muuqaalku markuu idin soo gaaro inaad sii share garaysaan qof walba oo muuqaalka uu soo gaarana ha sii share gareeyo insha Allah videogana like saara waxaan dul istaagi doonaa raggii weeraray hotelka SYL ee ka soo horjeeda madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaan idinkaga sidaa xog iyo faahfaahin ceebteeda wadata waxaa dib loo baaray raggii weeraray hotelka SYL aqoonsigii ay isticmaalayeen waxaa la soo helay aqoonsigaas xafiiskii laga bixiyay iyo waliba hay-addii lahayd aqoonsiga ceeb horay loo arag ayaa dhacday qodobka koowaad ee barnaamijka ayaan kuugu soo gudbi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waagii ayaa ku bariyay wuxuu hadda ogaaday wejiga u qarsoon mahad maxamed salaad ilaan habeenkiina waa mahad karataay maalintiina waa mahad salaad xasan sheekh siduu u ordayay xafiiskii mahad salaad buu ka dul dhacay weliba isagoo aan ku wargelin mahad maxamed salaad xafiiska inuu imaanayo kadibna maxaa dhacay wuxuu madaxweynuhu codsaday in hay-adda nisa ay ku wareejiso dhammaan waxyaabihii ay duubtay kaamirooyinka madaxtooyada Villa Soomaaliya madaxweynihii markii loo shiday wixii dhacay 24 saac ugu dambeeyay iyo qaabka ay argagixisadu ku soo galeen SYL waxay noqotay in badan oo bulshada kamidana ay la yaabi doonaan madaxweynaha midna xadin galisa waxaan rabaa inaan isdul taago kaamirooyinkii xasan sheekh loo baaray iyo wixii uu ku soo arkay sidoo kale barnaamijka waxaan kuugu soo gudbi doonaa hadda waa qasab in mahad salaad xilka laga qaado haddii kale xafiiska madaxweynaha ayaa khatar ku jira warbixinta aan hadda helayo xilka qaadista mahad salaad iyo qofka lagu bedelayo ayadana waan dul istaagi doonaa hadday wax iska bedelaan waan arkaynaa haddii uu madaxweynuhu go'aanka caawa ee xilka qaadista mahad salaadna uu ku adkaystana waan iftiimi doonaa soo dhawaada mar kale facebooka page-ka Cabdullaahi Balwaan muuqaalka waxaan idinka codsanayaa markuu idin soo gaaro inaad sii share garaysaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA wax alle iyo wixii bulshada Soomaaliyeed horay ugu maqlayeen maanta bannaankay timid wejiga qarsoon ee mahad maxamed salaad maanta bannaanka u yaala raggii al-shabaabka ahaa ee xarunta albaabka madaxtooyada Villa Soomaaliya hotelkii SYL ka dagaalamayay 24 saac aqoonsigoodii baa dib loo raadiyay waxa la ogaaday in ay wateen aqoonsiga hay-adda nisa mahad maxamed salaad xafiiskiisana laga bixiyay 40 nin ee shabaabka ah ee hotelka SYL ka dagaalamayay saacado badan madaxweynihii waagaa ku bariyay hadalkii Fahad Yaasiin xasan sheekh bay u shilantahay caawa muxuu yiri Fahad Yaasiin hadduu xasan sheekh ogaan lahaa mahad salaad wejiga u qarsoon hay-adana mas'uuliyadda uma dhiibi lahayn laakiin caawa hadalkii Fahad Yaasiin ayaa maskaxdii xasan sheekh maxamuud ka dhex goohaya markuu ogaaday xasan sheekh aqoonsiga hay-adda nisa iyo xafiiskii laga bixiyay oo ah xafiiska mahad salaad isagoo aan ku wargelin mahad salaad ayuu si kadis ah xarunta hay-adda nabad sugidda u tagay wuxuu codsaday in kaamirooyinkii madaxtooyada Villa Soomaaliya hay-adda nisa wixii 24 saac la soo dhaafay kaamirooyinkaasi ay duubeen in lagu wareejiyo muxuu filayay muxuu la kulmay Soomaaliyay si fiican hadalkan u dhageysta xasan markuu hay-adda nabad sugidda xarunteedii tagay waliba si kadisa madaxweynuhuna uu codsaday in lagu wareejiyo muuqaalada qarsoon ee kaamirooyinka ay duubaan waliba muuqaalada ay duubeen kaamirooyinka madaxtooyada si uu indhihiisa ugu arko qaabka argagixisadu ay uga soo gudubtay checkpoint walba madaxweynuhu markuu hay-adda nabad sugidda tagay ninkii mahad salaad ahaa wuxuu yiri madaxweyne 4 maalmood kaamirooyinka madaxtooyada maba shaqeyneenba si fiican hadalku dhigeyso 4 maalmood kaamirooyinka madaxtooyada maba shaqeyneyn waxaanu ku mashquulsanayn si aynu u cilla tiri lahayn marka sidaa darteed baaritaan baynu wadnaa laakiin wax kaamira ay duubtay oo madaxweyne aan gacan ku hayno ma jiro iswaafaji marka hotelka SYL oo shabaab loo fududeeyay aqoonsiga hay-adda nisa ay wateen waxaa kalood ku dartaa 4 maalmood kaamirooyinkii madaxtooyada sababta loo tirtiray hadda xasan sheekh wuxuu arkaa wixii aan anagu u sheegaynay
muddo 2 sano ah waraysigii Fahad Yaasiin maxaa ku jiray war xasan sheekhow aqoon u maleed ma hasalaade ka daahay adana mas'uuliyadda habeenkiina waa mahad karatay maalintiina waa mahad salaad laakiin xasan arintaas waa la iska inda tirayo xasanna waa diiday anaguna waxaan u maleynaynay Fahad Yaasiin hadalkiisu uu yahay ninka masayrsan mahad salaad hase yeeshee wax alla iyo wixii uu kula dardaarmay shacabka iyo hay'adda mas'uuliyadda maanta waxaan aragnaa wuxuu ku hadlay Fahad Yaasiin in arintu ay tahay xaqiiqo banaanka taala waxaan kaloo doonayaa sababta kaamirooyinka loo tirtiray inaan cadayn kala u keeno maxay xasan sheekh caawa xaaladdu waa ku xun tahay sababta loo tirtiray aan rabaa inaan micneeyo marka ma xusuusataan daawadayaal muddo ka hor inta aynan SYL weerarin al-shabaab inuu booqday mahad salaad kontaroolada muqdisho oo aynu daawanayno muuqaal leeyahay mahad salaad wuxuu booqday kontaroolka afgooye sidoo kale wuxuu booqday suuqa xoolaha degmada Hilwaa halkaas oo ku soo afray ma xasuustaan maalintii koowaad ama maalintii labaad ee Ramadaanka ay ahayd maxaynu aragnay marka maalintuu booqday in la yiri taliyaashii ciidamada kontaroolada muqdisho ayaa isbedel ugu sameeyay isbedelkaasi maxaa ka soo dhaxbaxay gaariga isku qarxiyay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya sida loo soo gudbiyaa noo soo baxaysa marka yaa diidi kara maxay yeelan ninkan kontaroolada markuu booqday sheeko kala aha kontarooladu booqday saraakiishu kala bedelay kadib uu soo noqday shabaab baa yimid xarunta madaxtooyada ay beegsadeen hotelkii SYL bay galeen markii la baaray kaamirooyinkana 4 maalmood madaxtooyada kaamiradeeda ma shaqeynayso iswaafaji marka hadduu marka xasan sheekh waagi ku barayay wuxuu hadda doonayaa in taliyaasha laamaha amniga isbedel lagu sameeyo taasina waan ka hadli doonaa intaanan u gudagelin qofka uu rabo inuu mahad salaad ku bedelo waxaa la ii sheegay in ciidamo ilaalada madaxtooyada Villa Soomaaliya la qabtay laakiin laga tagay kuwa si gaar ah mahad salaad uu u maamulo ee checkpointiga koowaad ee madaxtooyada ku sugan waxaa la qabtay kuwii kale kuwii rasmiga ahaa ee gaadiidka hagayana faraha laga qaaday madaxweyne sidan cadaalad ma tahay dawladdaaduna sidee bay noqon doontaa wajigeeda dal xureeye waxaa ku xigay madaxweynihiyo 24 saac gurigiisa go'doon ku ah shabaab baa laga adkaaday waxaa ku xigay shabaab baa 24 saac ka dagaalamaya xarunta madaxtooyada horteeda haddii tan SYL hoos loo dhigo waxay sababi doontaa wajiga labaad xafiiska madaxweynaha in la isugu tago waayahay waxaa la ii sheegay in xasan sheekh maxamuud lagula taliyay in mahad salaad lagu bedelo axmed macalin fiqi oo laga dhigo taliyaha hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed anigu soo waxaan leeyahay waa kudga guur qanjo u guur wax ay islaamaan ma laha amni muqdisho ku soo noqon maayo fiqiya laga dhigay taliyaha nabadgelyada madaxweyne dad aqoon u leh hay'adda nabadgelyada u dhiib haddii kale ceebtaadu maalin walba sidaan u soo taagnaanaysaa wixii ku soo kordha waxaan kugu soo gudbin doonaa barnaamijyada soo socda hadduu alla idmo haddii aad igu siyaasad tahay barnaamijka ii sheer garee haddaadan igu siyaasad ahayn oo barnaamijka uu ku dhibayana waxba ha sheer gareynin barnaamijkan mid lamid intaanu ku kulmi doono nabadgelyo